dhegaystayaal iyaga oo mar walba gabay kufaanka maanka ku haya ayaa haddana maansayahanada qaar ka mid ahi waxay arartooda u adeegsadaan inay ku muujiyaan aqoonta dheer ee ay u leeyihiin degaanada dalka soomaalidu uu ka kooban yahay tolalka ku kala baahsan iyo weliba qowmiyadaha kale ee dariska la yahay. tusaale ahaan gabyaal reer muduga ama reer tog dheera ama reer waama ahi kolka uu arartiisa ku xuso dhul ku kala yaal meelo degaankiisa aad uga durugsan iyo jiriba ku abtirsada weligii tolol aanu la sinjaarin abidkiina aanu ruuxna kala kulmin. marka uu gabyaagu sidaas yeelo wuxuu qadarin iyo maamuus dheeraada kaga helaa dadka uu maalintaa tixihiisa u marinaya iyo kuwa dib dambe ka maqli doona dirkaba. ragga, dumarka, waayeelka iyo dhallinyarada maantaa goobjoogga ah isla markaasna u warhaya maansayahanku kobta uu gabayga ka tirinayo inaanu noloshiisa oo idil wax weyn ka fogaan ayaa inta ka yaaba afka maroorsha isna weydiiya su'aal aan cidna jawaab ka sugayn oo ah bal dhulkan iyo dadkan uu taxaayo weligiiba indha kama qaadine hadmuu bartay maanshe la yidhi jinni baa gabyaaga wax u sheega. ararta noocaasa raggii hore ee gebyi jiray kama caaganayn inkastoo ay u badnayd ujeeddadooda inay toos u abbaaraan haddana waxaa laga dhexeli karaa qaar tixahooda ararta ku bilaabi jirayoo la'aanteedba aan dulucda u gudbi jirin. aan haddaba raggaa hore idinkaga soo dooro gabyaagii weynaa ee la odhan jiray maxamuud cali beenaley oo ka mid ahaa galbeedka geyiga soomaalida dadkii wax ka degi jiray inta la hubana nolol ku soo gaaray dabayaaqadii 1900 iyo soddonnadii qarnigii 20aad. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa maxamuud loo keenay tix gaabanoo isaga lagu maagayo taasoo dhab ahaan isla nimankii u keenay ay tiriyeen iyaga oo ku masabidaya qolo kale oo uu garanayay si ay markaa degaanka ku kala fogaayeen. aan sii yara faahfaahiye waxaa baryahaas gabayo isugu halcelinayay nimankii tixdaas masabidka ah maxamuud u keenay iyo qolo kale oo ay rabeen inay ku diraan dabadeedna markay fooda isu geliyaan uu iyaga dhinaca saaro maansadiisana uu ugu hiiliyo. warbal tixda iigu celiya ayuu nimankii u keenay ku yidhi. markaas bay yidhaahdeen waxay ahayd inta bari jirta iyo reer warfaaha isbahaysteene ballanqabaha doolaal jiciir ha isku badiyeene biid hadduu u tali beenaley ha isku biirsheene. maxamuud cali iyo nimankii loogu sheegayay tixdaas daandaansiga xambaarsan inay u soo dhiibeeni weligood wax xinif maanse ahi ma dhex marin. markaas buu garan waayey wax uu kaga tala galo si uu u rumaysto iyo si uu u beensado midnaba waa laga madoobeeyey. dabadeedna wuxuu go'aansaday hubsiina hal baa la siistaa waa tii la yidhi bal horta inta aanu jawaab celin inuu kaadsado oo korta oo arrinta si hoose ugu dhabagalo. maalintaas buu tiriyey gabay hanjabaad miirana si aanu cid gaara wax ugu dhibin, gabay ay ka muuqato in ciddii tirisay ay eedi doonto oo ay ku guban doonto dharaarta ay u caddaato ciddaasi midda ay tahay. marahayga waa gabayadiisa midka ugu caansan ee soomaalida qaarkeed ay ku garan og tahay dhextaalkii uu u yeelay ee ahaa armuu gabaygu baabkii noqdaa dunida baaweeyey. waxay kaloo dad badani ay gabaygaa ku xusuustaan laba meelisoo meel dhexa kaga jira aadna la isugu wariyo kuwaasoo ah beentiiyo runtuba waa dhow bay kala baxayaane aan baxnaansho xaajada kobtii barida loo saaro. runtii inkastoo ay habboonaan lahayd gabaygaas quruxda iyo quluudda miirana inaan wax idinka maqashiiyo haddana maanta isaga dulucdiisa diiradaydu ma saaree waxay saaran tahay arartii uu ku gardaadiyey ee uu ku muujinayay aqoontii uu u lahaa degaanka soomaalida iyo weliba carre edegta ay baduhu u dhaxeeyaan sida dalalka carbeed qaarkood. wuxuu arartiisii maxamuud ku yidhi awal maanso waataan ka baxay birimadeediiye waataan ka baalmaray tixday bala ka oognayde wax i booqday mooye haddaan soo baraarugaye xalaa baabisada lay akhriyey goor habeen balahe beled weyne baydhaba iyo xamar baydisliya koonfur
bulaxaar berbera saaxil iyo buuryar iyo awdal burciya looyo baargaar hobyiya badaha liilkooda basra iyo xudayda iyo maka iyo cadan bataaxeeda bohoraha hawaas iyo jigjiga beledka nairobi bay nimanka yaaliya intii bidix u sii dhaafsan baali sheekh xuseen iyo arlada bilaha loo jeedo dadka badan anuu ii yaqaan baabka maansada ee badweyn iyo waxay igu og yihiin bilicda geeraarigu waa tahay marar badan maansayahanka soomaaliyeed waxay gabay kufaanka iyo ismuujintu ay geyaysiiyaan in tix idil uu ujeedooyinkaas oo qura u tiriyo sida laga yaabo in barnaamijyadii hore qaarkood aan ku soo xusay waxay taasi aalaaba dhacdaa laba gabyaa markii ay fooda isdaraan ee erayada wada hanjabaadda iyo quursiga miiran ah uu midba midka kale jeefaaf la'aan ugu halgaado waa dagaal afeed haddii lagaga adkaado uu gabyaagu aad uga murugoodo haddii uu ku libaystana uu baal dheer gashado waa dagaal afeed aan midka gacanta waxba u ogeyn waxaa lagu dagaalamayaana waa hanashada dhagaha bulshada ay labada maansayahan af iyo degaanba wadaagaan erayba erayga uu ka culus yahay waxa uu gabyaa waliba u dooranayaa waa aqoonsiga dhegaystayaasha inuu isagu ku guulaysto dabadeedna midka ay ishayaan lagu yidhaahdo war hebelow hebel ma gaadhid oo kaa gabay aqoonsane ha ku daba lumin garta sidaas u cad raggii naqi jiray soomaalidii hore kuma yarayn ciddii ay siiyaanna lagama murmi jirine waxaa loo badnaa in lagu tixgeliyo oo hawraarsan la wada yidhaahdo waxay ahayd bulsho ay ku badnaayeen rag iyo dumar aan jaamacada kaga soo bixin cilmiga lafagurka maansada iyo guud ahaan suugaanta sidaasoo ay ahaydna looga dambeeyey kala saaridda gabyaaga runta ah iyo iska yeelka dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo